waxaan sababta la ku yeelin waxa weeye waxaan doonayaa inaan ka hadlo xiisado iyo buuq ayaamahanba ka taagnaa golaha wakiilada waxaan doonayaa inaan halka ka cadeeyo mowqifka wasaaradda ahaan iyo dawladda ahaanba aanu ka taaganahay arrimaha iyo dhacdooyinkaas dalku wuxuu dastuur buu leeyahay golayaal buu leeyahay xeerar bay ku dhisan yihiin nidaam bay leeyihiin hawlahooda iyo waxqabadkooda xeerar iyo xeer haasadyada ay u maraan iyo si ay u fuliyaan ayay leeyihiin marka arrimahaas ayay golayaashu ku shaqeeyaan lama ogola marka cidina in ay wixii heerka ku fula sidaa ku shaqeynaya in cidina ay faragelin ku samayso ama ay fadqalalo iyo waxaan loo baahnayn iyo xasilooni darro ka abuurto golaha waxaa laga doortay dhawaan waxaa laga doortay shir guddoon markii uu isbedelay guddoomiyihii goluhu uu iscasilay waxaa la dooranayay guddoomiye cusub guddoomiyaha sidii aanu ku daawanaynay amaba ay xeer hoosaadku golahu u yahay qaab baa loo doortaa hab loo maro uu leeyahay waxaanu arkaynay annagu habkaasu inuu habkii saxa ahaa iyo nidaamkii lagu dooran lahaa doorashadu ay ku dhici lahayd inuu ku dhacay oo si u hagaagsanaa in qaabkii loo maray in markii doorashadaasu dhacday ee gacantaagii dhacay kadib lagu dhawaaqay oo guddoomiyihii markaa shirka guddoominayey ama fadhiga guddoominayey oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii uu iclaamiyey oo ku dhawaaqay siday natiijadii doorashada waxaanu arkaynay in doorashada natiijadeedii la isku hambaliyeeyey ninkii ama xildhibaankii laga helay uu hambaliyeeyey xildhibaankii helay ee loogu dhawaaqay helitaanka inay isku gacan qaadeen inay isku salaameen inay isu haniideeyeen in arrintaa ay wax dhibaato oo ka taagin aanay jirin hadalkii soo noqday xusbiga maxay too murashaxii xusbiga wadani ka soo noqday waxaanu arkaynay mid aan meesha ku jirin inuu ahaa arrintaas aan mid loo baahan yahay aanay ahayn oo waanu naqaanaa golaha mar haddii uu la doortay doorashadii way dhacday mar haddii la isu haneeyey uu kaga dhawaaqay meel walba ka sheegay in sideedaa uu ku dawaya ayaanu arkaa inay sharafta iyo wanaagu ay ku jirto hase yeeshee waxaa jirta haddii markaa qofka sharaxan ay wax kaga jiraan oo uu arko markaa muran kaga jiro uu arko ay wax ku jiraan dee qaabab loo maro ama loo maxay too looga wixii aad dareen aad ka qabto loo cabiro ama loo sheegtaa jira waxaa jirta arrimo aan markaa meesha ku jirin waxaa jira murashaxii xusbiga wadani ee laga helay codkii laga helay in uu ku dhawaaqay in uu yahay guddoomiye dalku sharci buu leeyahay golayaashu nidaam bay leeyihiin halka kan laba madaxweyne dalku ma yeelan karo laba guddoomiye baarlamaan ma yeelan karo laba guddoomiye guurti ma yeelan karo golayaasha qaranku ma yeelan karaan laba guddoomiye hal guddoomiye weeye sida doorashadu ilaa iminka u dhacdaanu arkaynayna nin baa la doorta haddii muran ka jiro ama wax ka jiraan qaabkan loo sheegayo ma aha in aflagaado iyo in la isu mariyo maxay too idaacadaha iyo warbaahinta ma aha waa in qaabka ay leedahay qofku u maraa qofkii muran ka qaba markaa ama aan wax diidan waxaa loo baahan yahay golaha inaan buuq la gelin inaan xasiloonida dalka wax la yeelin annagu wasaarad ahaan iyo dawlad ahaanba ka dulqaadan mayno mana yeelayno in la geliyo xasilooni darri dalka in xiisad la abuuro aan jirin xusbi ahaan xusbiga wadani waxaanu aragnaa haddeeto dhaqdhaqaaqiisu inuu dalka dhibaato u soo jeedi karo aan loo baahnayn iyo xasilooni darro iyo buuq taana ka dulqaadan mayno yeeli mayno haddii aan wasaaradda amniga qaabilsanahay
gacan bira baanu ku qabanaynaa arrintaa ciddii dalka xasilooni darro iyo wixii u soo jeedayana cidna ka yeeli mayno ujeeddada weyne aan halkan idinku yeedhay arrintaa weeye waxaan doonayaa inay gaadho bulshada somalilan inay gaadho in dalka kanu uu nidaam dimuqraadi ah oo wanaagsan uu ku shaqeeyey ilaa iminka dowladdiisu ay ku dhisan tahay xasilooni badan aynu haysanno inaan xasilooni doorashadii aynu gelayno doorashadaasu inay si dimuqraadi oo xor oo xalaala inoogu dhacdaynu doonaynaa ma rabno in waxaan loo baahnayn meesha la abuuro xusbigaana waxaanu ka codsanaynaa in la joojo wixii aan loo baahnayn oo xusbigaas uu ka waantoogo waxyaalihii dhibaatada soo jeedi kara iyo xasilooni darro wax yeeli kara intaas weeye ujeedada aan idinku yeelay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Rashid Cabdiwahaab waxaa ka socda TV-ga mar dhaweyd sida aan la socono golaha wakiilada waxa ka dhacay khilaaf ka dhacay taasi oo ka dhalatay rasaas xabad la isku adeegsado ama xabad halkaas laga rido arrintaasi maadaama wasiirkii arrimaha gudaha tahay maxaa looga sheegi kartaa arrintaas arrintaa waxaan idinka sheegi karaa anigu waqtiga arrintaas u dhacday ma joogin magaaladaan jiray laakiin taliyaha ciidanka booliiska ayaa ii soo sheegay arrin aan la yaabay oo ku argagaxay bay runtii noqotay waana khalad ciddii arrintaa gacan qaadkaa lahayd ama hubay riddo ha noqoto ama gacan ay qaaddo ha noqoto ciddii geysatay khalad bay samaysay wixii ay mudane ha ahaado wax kale ha ahaado qof caadi ha noqdo qof allaalihi qofkii halkaa golaha ama rasaas ka riday ama gacan ka geystay ama dagaal ka geystay khalad weyn buu ku jiraa taa intaasu baan ka odhanayaa dimuqraadiya maxkamaduu leeyahay maxkamadihiisu wixii ay xukumaan ee ay go-aamiyaan ee maxkamadaha intii loo baahnaa iyo procedurkii loo baahnaa dalkuna dimuqraadi maxkamadahana waa la ixtiraamayaa go-aankooduna waa mid jira golaha xeerkiisu golaha maxkamado hadda nidaam buu leeyahay wax dastuurka wixii dastuurka ku yaala ee uu ogol yahay un bay soonigii sheegay ma waxaad doonaysaa qofkii arrintaas sameeyey khalad buu galay baan ku askari niman aan la socday xildhibaanba waa xidhan yihiin labada inta la ii sheegay